gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee injineer Faysal Cali Waraabe oo ku sugan magaalada Burco ayaa kormeer ku tagay isbitaalka guud ee magaalada Burco oo kormeerkan gudoomiyaha oo ay ku wehelinayeen saraakiisha sarsare xisbiga mucaaridka ah ee iyo sidoo kale mas'uuliyiinta xisbiga ee gobolka Togdheer ayaa waxa ku soo dhaweeyay isbitaalka guud ee Burco agaasimaha isbitaalka guud ee Burco Dr. Cabdi Suudi Ibrahim kaasoo uga warbixiyay xaaladda uu ku sugan yahay xilligani isbitaalku waxaan ku soo dhaweynaynaa maanta isbitaalka guud ee magaalada Burco gudoomiyaha xisbiga nuucid injineer Faysal Cali Waraabe oo runtii maanta nagu soo booqday isbitaalka guud ee magaalada Burco gudoomiyaha aad baan kaaga mahadnaqaynaa booqashadaad nagu timi waanan kugu soo dhaweynaynaa isbitaalka guud ee magaalada Burco isbitaalkan gudoomiyaha wuxuu adeegaa saddexda gobol ee bariga Soomaaliland waa isbitaalka weyn iyo qaybo kamid ah gobolka Saaxil waxay buuraa ka soo rogan oo dhan ilaa iyo Karin ilaa iyo Laasciile dad baa uga yimaada waxa kale oo isbitaalkan u adeegaa qaybo kamid ah dawlad deegaanka Soomaalida oo dhanna halkan bay u soo adeeg doontaan runtii muddooyinkii u dambeysay adeegyada isbitaalka wax badan baa ku soo kordhay gaar ahaan xagga dhiska iyo qaybaan bariga hore jiri jirin ay ka mid yihiin qaybtan kaliya lagu safeeyo bariga hore waxa ka jiri jirtay kala Hargeysa laakiin marka maasha Allah Burcana waa lagu safeeyaa kaliya qaybaha lafaha dhiska isbitaalkan gudoomiyaha waxa la dhisay 1948 baa la bilaabay 48 oo la dhameeyay waxa jiray waa muddo dheer waa dhiskii koowaad ee imka ku soo biiraa labadan sano u dambeysay intii xukuumaddan jirtay oo wax badan ay naga caawisay xagga dhiska annaguna waxaan sameynay dadaal ahaan inaan wax ka qabanno xagga nadaafadda iyo la xisaabtanka shaqaalaha taasina waxay keentay in 4% kordhaan dadkii soo adeeg doona jiray isbitaalka 100 dumar ku imili jiray imkana bishii 450 dumar ayaa isbitaalku u mulaa waxa kale oo ku soo kordhinay qaybaha lafaha oo bariga hore Hargeysa dadku u qaban jireen qaliinada lafaha dhankiisa waxa isaguna ka hadlay gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee injineer Faysal Cali Waraabe isbitaalkii Burco isbedel weyn baa ka socda markay ka baxday hay'adii taageeri jirtay isbitaalka Burco wareer weyn baa ayaa galay ana shakhsiyan waxaan arkay tayada ayaan leenahay dhaqaalahaan inaan dabooli karin ma arkay laakiin markii aan qisada maqalay taas waxay soo dhiirigelisay inaan ku simaado war fiican oo adiga siisay innaga waxyaalihii berigii aan dawladii magaalada faqashta oo ka dhacay magaalada kacdoon waxa kamid ah xagga caafimaadka oo waxa la sheegay jiray isbitaalka Hargeysa in laga umliyo dumarka baawro leerkiisa waxaan jeclahay ajalada in arkaan dadka reer Togdheer dibadda degani dadka reer Togdheer dibadda waa kuwa ugu lacagta ururka badan marka rabshadu jiraan lacagta rabshadaha aarati loo ururin jiray waxa ururin jiray reer Togdheer baa ururin jiray tii wadeen loo guri jiray reer Togdheer baa bixin jiray tii kulmiye loo guri jiray laakiin waxa weeyaan asaaska lacagta la siiyo ummadda waxa halka u xutaniya public service waxaan u abilgareynayaa reer Togdheer oo maanta shirki bilaabmay Burco galbeed barida isbitaalkaas waxa runtii wuxuu ku yaalaa inta saddexda gobol ee barigaba oo adeegaya kilka shanaad waa runtii oo adeegaya saaxil waa adeegaya waa center haddayna ku tuntunsan lahayn laba isbitaal aan xoog saalahayn ka Hargeysa iyo ka Burco oo qoy galbeed iyo qoy baran inuu oran jiray labada isbitaal ayna xoog galinayn lacagta naga tagtay Ethiopia naga tagtay magaalada India Malaysia kuwaas ay isticmaaleen hadayna geema fikireen moogtay dadka marka waan soo eegi doonaa insha Allah taala anu waxaan sameyn karnaa insha Allah taala inta ka adka waxa weeye waan qaylo doon diraa hay'adaha gudoomiyaha Faysal Cali Waraabe iyo saraakiisha xisbiga ee booqashadan isbitaalka guud ku wehelinaysay ayaa booqday qaybaha kala duwan ee isbitaalka guud ee magaalada Burco waa fahmi kaysa xirsi bulsha TV Burco.